dahabku waa mid ka mid ah maadooyinka ugu qaalisan ee adduunka korkiisa helidiisuna ay tahay mid qof walba uu ku haminayo inuu marun gacanta ku dhigo. Muuqaalkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa dad ka mid noqday dadka nasiibka leh ee helay maadada helitaankeedu yahay iyo naadirka ah ee dahabka. Wanigoo hawlaalkan Cabdimajiid ku soo dhawow muuqaalkeena maanta. dhacdada ugu horeysan ninka waxaa lagu magacaabaa Nick Smith waxaana uu dhashay dalka Britain. waxa uu ururiyaa ninkan taangiyada dagaalka ama kaariyaasha sida uu taqaanidba. waxa uu sameystay ninkan shirkad lagu magacaabo Tankcloth. shirkadan oo shaqadeedu tahay inay soo bandhigaan taangiyada ama kaariyaasha maalmaha khaaska ah ama xafladaha khaaska ah. taangigan ama kaarahan idin muuqda waxa uu Nick ka soo iibsaday website-ka lagu magacaabo eBay. markii ugu horeysay kolay aniga aan maqlo in laga iibsaday taangi ama kaare internetka ama website. taangigaas oo laga lahaa dalka Ciraaq. markii uu soo gatay ama iibsaday Nick taangiga ama kaarihii waxa uu dollar. dhacdada labaad ayaa biyaanadii laga dhaxlay dahabka. dhacdadan waxay dhacday sanadkii 2017. biyaanadan idin muuqata waxa ay lamaanays qabay u deeqeen ama siiyeen college dawli ah ama dawladda raacsan oo ku yaala magaalada Shropshire ee England. biyaanadan ayaa waxa ay jirtay waqti dhan ama waqti lagu qiyaaso 110 sano. sidaa awgeed ma ahayn mid caadi ah, yacni way xumayd. sidaas darteed ayay maamulka iskuulku ugu yeedheen ninkan lagu magacaabo Martin Backhouse si uu hagaajiyo. intaa kadib Martin uu ku guda jiray hagaajinta biyaanadan ayaa waxa uu ka dhaxlay biyaanada dhexdeedii waraaq ay ku dhex jiraan lacag bir ahi. waxa Martin guda galay inuu baadho lacagtan waxaana dareemay inay tahay lacagtani mid dahab ah. isla markiiba waxa uu la socodsiiyay arrinkii maamulkii college-ka uu hagaajinayay biyaanadan. intaa kadib maamulkii markii uu ogaaday inay idna tahay lacag dahab ah waxa uu la socodsiiyay dawladdii. waxa ay dawladdii baadhay lacagtii birta ahayd waxaana la ogaaday inay tahay lacag la isticmaali jiray qarnigii 18aad waxaana lagu qiyaasay lacagtan qiimo dhan $500,000. dhacdada xigta ninkan waxaa lagu magacaabaa Luciano Fagiano. waxa uu dhashay ninkan dalka Talyaaniga halkaas oo uu ku lahaa guri u dhisay sanadkii 1984. waxa uu go'aansaday sanadkii 2000 inuu u bedelo dabaqa hoose ee gurigiisa hotel. intaa kadib waxa uu damcay Luciano inuu hagaajiyo mid ka mid ah dhuumaha ama tuubooyinka suuliga ama musqulaha kaas oo ahaa mid xun. tuubadaas oo ku taalay dhulka hoostiisa. waxa uu bilaabay Luciano inuu hagaajiyo tuubadii. markii ay qodeen Luciano iyo caruurtiisa dhulka waxay ku arkeen guriyo kale oo ka hooseeya gurigooda ama gurigiisa. intaas kadib waxa ay tageen godkii qodnaa ama gurigooda ka hooseeyay qolaal badan oo ay ku urursan yihiin alaabo qadiim ah oo ay ka tageen Roomaanka ka talin jiray waddanka Talyaaniga. waxa uu go'aansaday Luciano kadib markii uu la xiriiray dawladda lana socodsiiyay arrinkii inuu u bedelo matxaf ama meel lagu ururiyo alaabta qadiimiga. waana uu furay matxafkii waxaana ugu magac daray Fagiano waxaana ku yaala matxafkii maanta magaalada Lecce ee dalka Talyaaniga. dhacdada ugu dambeysay waxay ka dhacday waddanka Bulgaria sanadkii 2018. mid ka mid ah xabsiyada magaalada Bulifin waxayna ahaayeen qayb ka mid ah maxaabiista kuwaas oo loo diray inay ka shaqeeyaan beer yar oo raacsanada xabsiga ama ku dhex taala xabsiga dhexdiisa ay ka shaqeynayeen. intaa kadib intay ku guda jireen qoodida dhulkii ayaa waxay ku arkeen lacag bir ah ay ka soo qodeen dhulka. lacagtaas oo la isticmaali jiray qarnigii 19aad waxaana la isticmaali jiray xilligii ay jirtay ama ay tirin jirtay Imraadoriyadii Cusmaaniyiinta. waxayna gaadhaysay lacagtan birta ahi tiradeedu 7,000 oo bir ah halka miisaankeeduna gaadhay 8 kilogram. ugu dambeyn waxa uu xabsigii u gudbiyay dawladda balse wax nasiib ah uma yeelan dadkii helay ama maxaabiista ayaa soo qoday lacagtan. muuqaalkeena maanta intaas uu ka egyahay. intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.